Dowladda Kenya ayaa xoojisay ciidamada ka jooga xadka ay la wadaagto Soomaaliya si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalkaas iyo saldhigyada ciidamada ee u dhow sohdinta sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan. Milatariga Kenya oo wata gaadiid badan ayaa la sheegay in ay u soo gudbeen dhinaca xadka Soomaaliya waxaana la kordhiyay ciidamada ka howlgala goobaha ay isaga kala gudbaan gawaarida labada dal. Ilo amni ayaa ku waramay in madaxweynaha Kenya uu dhawaan la kulmay saraakiisha ciidamada milatariga, sirdoonka iyo booliiska isaga oo kala hadlay adkeynta nabadgelyada iyo ka hortagga weerarada Al-Shabaab sida hadalka loo dhigay. Kenya ayaa diidan in uu culays ka yimaado wadooyinka muhiimka u ah isu socodka ciidankeeda ka jooga Soomaaliya oo si joogto ah sahayda u gudbista. Sidoo kale arrinta labaad ayaa ah in haddii weerarada sii kordhaan uu badanayo amni darrada gudaha dalkeeda. Aniguna waxaan ahay Mahad Aadan Xuseen.